banaanbax looga soo horjeedo dilalkii dhawaan ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Stockholm ee caasimadda dalkani Sweden ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Rinkeby ee magaalada Stockholm. Faafahinta warkaasi waxaa magaalada Stockholm inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabduqaadir. Banaanbaxan oo labadii maalmood lagu qabtay barxadda weyn ee xaafadda Rinkeby ee magaalada Stockholm waxaa si wadajir uga soo qayb galay qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan dalka oo ka mid yihiin dadka Soomaaliyeed oo iyagu ah ku si weyn uga dhex muuqday banaanbaxaas. Banaanbaxa ayaa waxaa si weyn loogu cambaareeyay dilka dhalinyarada Soomaaliyeed toddobaadyadii ugu dambeeyay lagu dilay xaafadaha Rinkeby iyo Tenista tirintaas ka badan hore loogu dilay dalka Sweden. Qaar ka mid ah dadka ka soo qayb galay soobaxaasi ayaa sheegay in tiiraanyada iyo dhibkii soo gaaray waalidiintii dhalay wiilasha la dilay ee la qaybsanayaan. Bixi maanta ka dhacay Rinkeby oo ku saabsanaa dhibaatooyinkii la soo gaaray ee familiyadka qaarkood ay gaareen aad waxaan ugu tacsiinayno. waxaan jeclaan lahaa waxaas in si aad looga hortago qof kasta oo Soomaalina uu qayb ka qaato ka hortageeda. waxaana lagu badbaadin karaa ilmahaas in loo isku duubnaado oo arrimahooda aad loo dhexgalo lala saaxiibo la soo jiito waxyaalaha ay ku jiraanna laga banaanbixi maantay wuxuu ku saabsanaa shucuubta iyo xaaladda soo noqnoqotay ee adag ee ka jirto magaalada Stockholm. ummadda Soomaaliyeedna waxay muujinayeen inay aad uga xun yihiin xaaladda jirto ama waxyaabaha dhacay inay tusaan dadka ay la nool yihiin inaysan ahayn dad xun ee xaaladdan ay ka dhacdo adduunyada meel walbo ee la joogo. banaanbaxan maantay ka dhacay Rinkeby wuxuu muujinayaa dareen Soomaalinimo ah. waxaan rajaynaynaa insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa culimada diinka siyaasadda jaaliyadda dadka wax garadka ah inay meeshaas uga harin maantay kulan wanaagsan oo qofka dareenkiisa uu ka dhiibtaa meesha ka dhacay. maanta banaanbaxan aan ka soo qayb galnay gaar ahaan xaafadda Rinkeby magaalada Stockholm. marka waxaan u muujinaynaa Soomaaliyeedna gaar ahaan ummadda muslimiinta dhammaan culimada diinka wax garadka iyo inta bulshadeeda inteeda kale macnaha inaan ka dhidhino oo dhibaatada ka dhacday inaan raali ka ahayn aan meel